السلام عليكم بخير شرفت لكم soo dhawaada kulli TV maanta halkan waxaan kugu soo gudbinaynaa qiso aad iyo aad u xanuun badan gabadhii ku jirtay filimkii kufsiga Netflix oo gacanteeda isku dishay Daisy Coleman oo dibana u ahayd weerar kufsi ah kana soo muuqatay filimkii Netflix ee ka hadlayay tacdiyada galmada ayaa is dishay sida ay ku soo warantay hooyadeed filimka ay gabadhan ka soo muuqatay oo lagu magacaabo Audrey and Daisy ayaa soo baxay sanadkii 2016 wuxuuna noqday mid ka mid ah filmaanta aadka loo xiiseeyay sheekooyinkooda Daisy Coleman oo ay daadeedii ahayd 23 sano jir ayaa iyadoo 14 jir ah lagu kufsaday meel xaflad ka socotay sanadkii 2012 wuxuu falkaas ka dhacay magaalada Maryville oo ka tirsan gobolka Missouri ee dalka Mareykanka kiiskeeda ayaa noqday mid indhaha qaranka oo dhan ku soo jeesteen kadib markii ay sheegtay in lagu aflagaday dhacdadas kufsiga ah oo loo geystay laakiin kiiskii ka dhanka wiilashii ay ku eedeysay inay kufsadeen ayaa la baabiyay markii dambe waxaa lagu soo rabay in meydkeeda la helay markii ay hooyadeedu wacday ciidanka booliska ay ku wargelisay in gabadheeda laadahay jaani ciri meel ay dhigtay waxay ahayd saaxiibkayga ugu wanaagsanaa iyo gabadheeda cajiibka ayay tiri hooyadeed Melinda Coleman oo qoraal soo dhigtay barteeda Facebook waxaan u maleynayaa inay raadinaysay qaab ay dhacdadan ugu ekaysiiso mid u muuqata in aan la'aanteed noolaan karo la'aanteed ayay hooyada hadalkiisii raacisay waxaan jeclaan lahaa in aan ka qaadan karo xanuunkii ay dareemaysay weligeed kama aysan bogsoon lahayn waxay wiilashaas ku sameeyeen sidaasina cadaalad maaha gabadheedii yareed way iga tagtay wayna iga dhimatay ayay hooyadeed ku calaacashay Daisy Coleman waxay sheegtay in la kufsaday kadib markii uu daroogo siiyay wiil 17 sano jir ah oo lagu magacaabo Matthew Bennett xilli ay ku jirtay xaflad ka socotay guri ay ku wada sugnaayeen sanadkii 2012 hooyadeed waxay sheegtay in gabadheeda heshay subaxdii ku xigtay iyadoo taala meel cilo ah dimeeda ay qoyan yihiin dharna ka qabtaal fanaanad oo kaliya waxay intaas ku dartay in meesha looga tagay oo ka jira qabow aad iyo aad u daran Bennett waxaa lagu soo oogay dacwad kufsi ah laakiin markii dambe kiiskii waa la iska laalay oo waa la baabiyay qoyska gabadha la kufsaday waxay ku doodeen in baabiinta kiiska ay gacan ka geysteen siyaasiyiin awood leh oo xiriir la leh wiilka qoyska wax kufsaday Bennett waa wiilka kufsiga lagu soo eedeeyay wuxuu qirtay inuu dambi geystay balse uusan gaarsiinin heer kufsi ah laakiin eedaynta ku saabsan kufsiga lagu soo eedeeyay uu yahay been soo dhoodhoobay oo aan sali raadna lahayn kiiska gabadha la kufsaday wuxuu gudaha Mareykanka ka abuuray dood la xiriirta tacdiyada kufsiga ee loo geysto gabdhaha da'yarta ah iyo sidoo kale eedeymaha iyo aflagaadada ay la kulmaan dhibanayaasha noocaas ah ee kufsiga loo geysta kadibna kiiskooda la iska laalo ama si xaq darro ah loo xukumo ugu dambeyntiina Coleman iyo qoyskeeda waxay iskaga guureen magaalada Maryville kadib markii loo hanjabay iskuulkana lagu qashqashaaday ilmihii kale ee u haray 16 ayay Daisy Coleman ka qayb gashay filimka ka hadlayay tacdiyada kufsiga filimka ay sameysay shirkadda Netflix sanadkii 2016 ayay ka soo muuqatay gabadhan kaasoo lagu soo bandhigay xaqiiqooyin badan oo ku saabsan dhibaatada ay la kulmaan dhalinyarada dhibanayaasha ah ee kufsiga loo geysto gabar kale oo lagu matalayay filimkaas oo lagu magacaabo Audrey Bott ayaa iyadana is dishay sanadkii 2012 maalmo kadib markii la kufsaday gabadhan ayaa filimka dhacdada lagu matalay iyada oo mar hore is dishay Daisy Coleman ayaa garab siinayay shirkadda Safeway oo ah hay'ad aan faa'iido doon ahayn balse ka hortagta tacdiyada galmada ah ee ka dhacay iskuulada bayaan arbacadii maanta ka soo baxay hay'adda Safeway ayaa lagu sheegay in dhammaan shaqaalaha hay'addan iyo maamulayaasha ay la murugaysan yihiin geerida soo gaartay gabadhan qoyskeedana ay u rajeynayaan inay helaan bedel kale oo gabadhooda u bedela falalka kufsiga iyo tacdiyada loo geysto gabdhaha iyo wiilasha ayaa dalka Mareykanka aad iyo aad ugu badan wuxuuna kaalmaha koowaad ugu jira wadamada adduunka ee tacdiyada galmada ay ka dhacaan khiyaar sharafta leh haddii aad barnaamijkan ka hesheen share gareeya videogana like saara channelkan subscribe si aad ula socotaan muuqaalada dambe aan soo geli doono waana mahadsantihiin khayr ayaan idin rajeynaynaa wabillahi tawfiiq